war degdeg ah oo xilligan ka imaanaya gobolka Sool. wararka laga helay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay tilmaamayaan in goordhow xabsiga laga sii daayay ku dhawaad 57 maxbuus oo kamid ah ciidankii Somaliland ee lagu qabtay dagaalkii dhacay 25kii bishii 8aad 2023 maalin Jimco ah. haddaba waxaad isweydiinaysaa qaab noocee ah ayaa ciidankan loo sii daayay halkeesa la geeyay miyaase la fasaxay. warbixin toddobaadkii la soo dhaafay aan daawadayaal baraha bulshada ku baahiyay ayaan ku sheegay in maamulka waqooyi bari uu xilligan qorsheynayo sii deynta maxaabiis aad u fara badan. maxaabiista dabcan lama fasixin oo looma ogolaan inay banaanka u baxaan, laakiin xabsiga ay ku xirnaayeen 2 sano ilaa 3 sano ee la soo dhaafay ayaa laga bedelay waxaana la geeyay xabsi kale oo ku yaala duleedka magaalada Laascaanood. waxaa jira duhun weyn oo ah in maxaabiistu ay is abaabuli karaan, qoryana ay gacanta ku dhigi karaan, halkaana qashqashaad uu ka dhici karo. marka waxaa la sameeyay qiimo ama dhimis ama in la dhimo tirada maxaabiista ku xirxirneed xabsiga weyn ee magaalada Laascaanood, kaasi oo ku yaala bartamaha magaalada si weyn amnigiisa loo ilaaliyo. taliyaha ciidanka asluubta maamulka waqooyi bari oo aan goordhow la hadlay si aan wax uga weydiiyo xogaha wararka amuurtan wuxuu ii sheegay in ay hayaan cadeymo buuxo oo la xiriira in ay jiraan in maxaabiista Somaliland qaarkood ay abaabulayeen inay qaadaan weeraro balse ay ka hortageen. tirada maxaabiista ku xirxiran xabsiyada kala duwan ee maamulka waqooyi bari isla markaana Somaliland laga qabtay 2023 tir ahaan waxay gaarayaan 395 maxbuus, waana tirada ciidankii ugu badnaa taariikhda ee Somaliland laga qabto 2 maalmood gudahood. waxaa la xasuustaa in intaa ka badan la dilay, qaar kalena la dhaawacay siday wararku tilmaamayaan. ninka ugu sarreeya oo xilligan ay ku gorgortami karaan maamulka waqooyi bari oo ay gacanta ku hayaan waa General Faysal Cabdi Bootaan. reerka Somaliland la yiraahdana ninkan wuxuu u yahay haliyay aan dhinaciisa la dulidin. khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin tan waa fariintii ugu dambeysay oo ay qaateen maamulka waqooyi bari oo ku aadan inay xabsiga magaalada Laascaanood isbedel lagu sameeyo maxaabiista. 57 ilaa 58 ayaa xalay laga saaray xabsiga, waxaana la geeyay xabsi kale oo ku yaala isla banaanka magaalada Laascaanood. halkaas ayay waqti iyo waayo ku qaadan doonaan sida ay tilmaamayaan xogaha wararka iyo macluumaadka aan helayno. khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin waa in si degdeg ah jawaab looga bixiyaa faragelin la sheegay inay si hoos uga imaanayso maamul goboleedka Puntland oo ku aadan in la burburiyo maamulkan curdunka ah sida ay xogaha tilmaamayaan. Puntland gaar ahaan Dani ayaa tiro dhowr jeer isku dayay in uu xabsiga laga sii daayo maxaabiista aan soo carrabaabay, laakiin waa uu ku guul dareystay. taa bedelkeedana tallaabooyin kale ayuu qaaday Dani oo way u suurtageli waayeen. waxaana tallaabooyinkaasi ugu waaweyn siday wararku tilmaamayaan in si degdeg ah gacan bir ah loogu qabto sidii loo soo afmeeri lahaa cid walba oo ku lug leh filashada dhacdooyinkaasi oo la aaminsan yahay inay u horeeyaan maamulada aan soo carrabaabay. maxaabiista amnigooda si weyn ayaa loo ilaaliyaa, cuntooyin iyo daryeel gaarana waa la siiyaa, waxaana la tilmaamaa in maxaabiistu ay helaan daryeel fiican oo ka duwan kuwa ay helaan maxaabiista kale. waana asgar mar walba amnigooda si weyn loo ilaaliyo oo laga cabsi qaba inay waxyeello geystaan. annaga iskale halkan lughaya annaga le siilaan annaga le maanta la kala baran doona cidda iskale deegaanka dawladda Somaliland faraha ka qaadan leh faraha ka qaado ciise waxba yeena bariin waxaan leeyahay Ismaaciil Cumarna amba jabhada soo samee amba halkan kaalayo dad u soo dir waxa la isku qabsan doonaa oo ballan Ilaahay kugula galaya inaan Jabuuti lagu marmi doono. ugaaska ciise ee ku dhawaaqay in uu sayla ku soo duulumaa tagayana madaxaaga intaan bacmika ku ridnaan u geyn doonaa ugaaskaygi taana ku bishaaraysan leh gang Allah inii naxariisayntii shahiiday ragana waa reesiciid gang weeyaan waa in garab joognaa inta nool. halkan waxa taagan ee jooga waxa weyn ciidanka xaqu-dirirka jabhadaha Samaroon kamida
beesha siciida bokor ee halka ay taalii degan tahay loogyahay wey sidaa iyadoo cidna duulimaadku maaha waxayse u taagan tahay dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba inay difaacdo caalamkana waxaanu sheegaynaa cid alla ciddiina soo faragelisa ee ammaanka iyaga aan uga weyno nabadgelyo uga weyno inaan nafta iyo maalka iyo muruqaba u hurayn halkan waxa joogtay waa jabhada waxa weeyaan madaniga ee la yiraahdo xaqdir ee magaceedu ugu dheer yahay heemiya waxa weeyaan waa beelaha Gadabursi beel kamida waa beesha Siciida Bokor Gadabursigii dhintay ku dhintay Boorame intii dhimatay sabriye iimaan Allah ka siiyo dadkii ay ka baxeen waa ka taasiyeenayna intii dhimatayna Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo inta ka bacdi waxa halka loo taagan yahay dalkeega iyo diinteeda inay difaacdo jabhadaasi waxa weeyaan waxa la yiri saddexba waa lagu dhintaa waxa weeye dalkaaga diintaada iyo waxa weeyaan diirkaaga waa lagu dhintaa deeyo dalkii bay joogtaa cidii soo doonata dalka nagu soo doonata inaan difaacno diyaar ma u tihiin waxa weeyaan dalka iyo nafta iyo maalka cidii soo doonata inay difaacdaan diyaar u nahay cidna duulimaad kuma nihin sheegaynaa anagu isaaq kuma duulayni ciise kuma duulaynin laakiin cidii la soo doonata diyaar ma u tihiin jabhadaasi halkaa u joogaan cidna duulimaad kuma ciise iyo isaaq iyo daarood iyo cidna duulimaad kuma dalka gobolka Awdal oo lagu soo duulay oo duulimaad lagu yahay niman gaagaaban laga keenay xagga Itoobiya iyaanu difaacaynaa anagu niman gaagaaban baa Itoobiya laga keenay dalka Awdal bay ku soo duuleen dawladda waxaanu sheegaynaa tahay annagu halkan maanta markaan ka hadlayno waxaan u diyaar galownay inaan dadkayga difaacno ubadkayga difaacno dalkayga difaacno diintayadana aan difaacno dadka halkan joogay waa beelweynta reer Siciid ee degta ama majority ka xeebaha gobolka Awdal reer Siciid wuxuu maanta diyaar u yahay oo aanu sheeganaa tolweynaha Gadabursi meel kastuu joogaba inaan saylac u dhimarano waa marka koobaad waayo saylac waa sumadayadii waana xaramkaygii labaad taasi waa taa wadaf gang Allah inii naxariisayntii shahiiday ragganna waa reer Siciid gang weeyaan waan in garab joognaa inta nool reer Boorama thank you very much aad baad mahadsantiin waayo saylac Boorama dhashay dadku ha ogaadaan Soomaalidu saylac iyo Samaroon maxaa ka dhaxeeya dhahdaan saylac waa father of all Gadabursi iyadaana wada dhashay meel kastuu Gadabursi joogo saylac baa dhashay saylac kama kaftano ninkii mooday inaan ka kaftano kama kaftano ku biyacad waxaan halkan u sheeganaa dadka ka soo bootaynaya dalalka jaarka ah waxaan u sheeganaa dadka city ka soo bootaynaya dadka ka soo bootaynaya dirdhaba waad garanaysaa waxa halka ka dhacay waxa weeye ha nugu soo degdegin alle inta ka hor waxaan meel kasta oo uu Gadabursi joogo aan ku wacyi gelinayaa oo u sheegayaa nin walba halkaad joogto xeeb u soo dhaadhac dhulkaaga u soo dhaadhac sharafkaaga u soo dhaadhac cirdigaaga u soo dhaadhac dalkaaga u soo dhaadhac weyntii Bahaabara Bokor gaar ahaan cutubkii Siciid waxaan u sheegayaa ugaaska Ciise habeen hore waxaan maqlayay inuu iclaamiyay dagaal diyaar baan ku nahay saylac annaga leh maanta taariikhdu waxay qori doontaa lugahiye saylac cid leh afarta maganta ahayd ee lugahiye saylac deganaydna waxa weeyaan cali cadawga si samee guriyo annaga iskale halkan lugahiye annaga leh saylacna annaga leh maanta lana kala baran doona cidda iskale deegaanka dawladda Soomaaliland faraha ka qaadan leh faraha ka qaado ciise waxba yeena bariin annaga naqaana saan iskaga celinayna annaga naqaana faraha ka qaadan leh taariikhduna way qori doontaa maanta taariikhduna way qori doontaa cidda ku soo qaxootiday lugahiye saylac cidda ka dhex bootaynaysa heedhade aanan xabad ku lahayna way qori doontaa
waxaan leeyahay Ismaaciil Cumarna amba jabhada soo samee amba halkan kaalaya oo dad u soo dir waxa la isku qabsan doonaa oo ballan Ilaahay kugula galaya inaan Jabuuti lagu marmi doono in Jabuuti lagu marmi doono ayaan ballan kugu qaadaya ugaaska Ciise ee ku dhawaaqay in uu Sayla ku soo duulumaa tagayana madaxaaga intaan bacmi ka ku ridnaan u geyn doonaa ugaaskaygi